Soomaaliya waxa ay haysataa madax ka midaysan aragtida siyaasadeed ee dalka isla ogol jaangooynta talada una caddahay jihada looga talaabayo marxaladda kala guur. Guulaha qaran ee lagu gaaray xasiloonida iyo wada shaqaynta hoggaanka ugu sarreeya saddexda hay'adood ee dalka waxay u cuntami weysay siyaasiyiin iyo ganacsato ku shaqeeya fikrado iyo talooyin sirdoon shisheeye oo muddo saynta kaga taagnaa Soomaaliya. maanta siyaasiyiin midabka Soomaali ka ah ayaa dalka dibadiisa ka abaabulaya mu'aamarado iyo dibindaabiyooyin qaran si ay u curyaamiyaan dawladnimada hana qaaday una abuuraan khalkhal iyo fawdo siyaasadeed oo sababi kara dib u dhac hor leh. Kooxdan oo siyaasadda u soo galay inay lacag ka sameeyaan waxay ku andacoonayaan laba arrin. kow, inay xubno ka noqdaan xukuumadda dan qaran qandaraasyo gaar ahna loo xiro. labo, ama inay xukuumadda meesha ka baxdo si ay qayb kaga noqdaan midda kale. waa laba arrin oo aan sinaba suurtagal ku ahayn. tan koowaad, xubno kama noqon karaan xukuumadda oo awood qaybsiga siyaasadeed ee nidaamka 4.5 ayaa u diidaya. mana jirto sabab loogu bedelo wasiirada hadda matala iyaga. wax hebel uu rabo ma soconayso, laakiin waxa dadka Soomaaliyeed ay doonayaan soconay. tan labaad waa riyo maalmeed iyo wax kama jiraan inay meesha ka baxdo xukuumad haysata taageerada 95% xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka isla markaana ay wadajir u difaaciyaan hoggaanka dhammaan hay'adaha ugu sarreeya dalka. raggan waxa ay magaalada Nairobi la fadhiyaan mahmaahda caanka ah ee ah adkaana ku cunay ama ku ciiday iyaan laga dambayn. waana astaamaha ay ku suntan yihiin kuwa aan danta qaran ka shaqeynaya shisheeyaha u adeega. dalku wuxuu haystaa ra'iisul wasaare isku haya madaxweynaha, baarlamaanka iyo xukuumadda. astaan waa xasiloonida kana dheer danaha shakhsiga ah iyo maal-aruursi. waa hoggaamiye si buuxda uga warqaba duruufaha iyo caqabadaha uu dalku wajahayo isla markaana fahamsan taariikhdii la soo maray iyo marxaladda maanta la taagan yahay. xukuumadda dan qaran waxay xasilisay siyaasadda dalka halka ay meesha ka saartay xiisadihii sababi jiray dib u dhaca iyo niyadjabka shacabka. ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku faanayaa inuu hoggaaminayo xukuumad ka fog khilaafaadka taa beddelkeedana ku mashquulsan samata bixinta dalka iyo u adeegidda ummadda Soomaaliyeed. Soomaaliya waxa ay in muddo ah dhibana u hayd madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isku dheggan oo aan wada shaqayn iyo baarlamaan laga dhex macaasho oo muushinku shaqo maalmeed yahay. ase yeeshee caqabadahaasi 3 sano ee la soo dhaafay saaxada ay ka baxeen. haddaba dadku waxa ay sugayaan sida ay xildhibaanada iyo hoggaanka golayaasha sharci dejintu ugu kala gar qaadaan siyaasiga fawdada iyo fidnada hurinaya iyo shacabka doonaya horumarka iyo dawladnimada. waxa Ilaahay nagu xisaabtamaya inaan Soomaaliya meeshii ku celin. marka ciddii wax ka rabta meesha ee wax ka qordinaysa ama u lujiyaysa waxaan leeyahay rajal laga ma qabo.